Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa EBC News Now. Daawadayaal ku soo dhowaada EBC News iyo wararkii maanta oo bishu tahay 25 Oktoobar 2025. Haddaba, waa barnaamijkani labaad aan idiin gudbinayno maanta. Barnaamijkani waxa uu ku saabsan yahay gudoomiyaha xisbiga KAH mudane Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa isagu baryahanba waxa uu booqasho ku mariyay wadamada Yurub. isla markaana waxa uu hadda ku sugan yahay dalka UK. Waxa xaflad weyn oo soo dhaweyn ah loogu sameeyay magaalada London habeenkii xalay ahayd. Maxamuud Xaashi waxa uu si toos ah u duray xukuumadda Somaliland ay hogaaminayaan xisbiga wadani ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro. Maxamuud Xaashi waxa uu si toos ah ugu eedeeyay xisbiga wadani in uu iyagu lumiyay bariga Sool. haddaba aan idin kala baxo gudoomiyaha iyo hadallo badan oo uu ka hadlay oo ku saabsan arrimaha Somaliland iyo dhaleelihii uu soo jeediyey xukuumadda. daawasho wanaagsan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان مدن تأيمرت شرفت مناسبة عاوة حفلة لندن حسبك كاه كسو قيب كشي السجود تيمي إن صو شرفتي لما أنتم با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقرروا حنوم هذا غيا لما مدحلا يمسؤولين تحسبك كاه دلك إنجليزكا قيبه ذكر الدول waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa guddigii qabanqaabada ee xafladan isku dubariday dhammaantiinba waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sida waxa wanaagsan aan u tilmaamayno waxa qalloocsamay iyo qabyadana waa tilmaamayno ka gaban mayno waa mas-uuliyadayadii iyo xilkayagii qarannimo ee qaranku aanu u hayni wey annagu xisbiga talada haya mani waxaana xisbiga gaarka ka haya ee ilaalinaya ee farta ku fiiqaya waxa qalloocsamaa ama qabyada waxa wanaagsanna waanu bogaadinayna mararka xukuumadda talada haysa la dhaliilo ama arrimo lagala hadlo waxaa soo baxay dareena dawladdii hore xumaysay beri horey xumaatay war dawladda talada haya lagama rabo erayadaa waa tagto iyo taagan iyo timaado taagantaa laga hadlayaa taagantana waxaa ka mas-uula iyaga taaganta Somaliland waxaa ka mas-uula xukuumadda haysa xisbigii talada hayay waa lagala wareegay mas-uuliyadda qaranka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat eed iyo wanaag iyo sharaf iyo dhaliil waxay lahaydba way ka tagtay talada cidda loo dhaariyay qaranka waa xukuumadda waa nasiib darro weyn mas-uuliyiinta iyo madaxda uu madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro cugtay inay bulshada la soo hor fadhiistaan xukuumaddii hore waxaa xumaysa sool hadday qayb ka midii faraha ka baxday waqtigii xukuumaddii xisbiga kulmiye ee hore xukuumadda maanta jirtay gacanteeda lagala baxay oo dawlad maamul goboleed kale laga barbardhisay oo loo magac bixiyay magacyadeennii maxay u sheegayaan waxa shalay dhacay may ka hadlaan waxa taagan may qorshe u sameeyaan fartaanu ku fiiqayna xukuumadda maanta jirta iyadoo talisaa ra'iisul wasaarihii Soomaaliya laascaanood yiri xukuumadda xisbiga wadani waata uu ku soo socdo madaxweyne xasan sheekh laascaanood ee caleema saarka iyo shaambadda ku dhufanay wuxuu yidhi maydkii la siday hadda waa mayd iyadoo la sido
ayuu dhulka ku dhacay markaasuu yidhi hadduu sii go'a yaa dee sool gacantiinnay ku sii go'day sool bari gacantiinna ayay ku sii go'day baannu leh qorshe cadna kamaydaan yeelan annaga oo xisbigii labaadee qarankaana nalamaydaan wadaagin madaxweynaha waannu tagno waxaannu ku nihi maxaa kaaga qorshaa waxba nooma sheegin waa idiin yeedhayaa buu nagu yidhi waxaan leedahay somalilan xuduudaheedu waa la yaqaanaa cadho iyo caadifadna laguma beddeli karo xasan sheikh iyo xukuumaddiisa oo qalimaan iyo waraaqa ku qorana waxba kama beddeli karaan waa divided territory waa xuduud la yaqaan dowladihii sameeyey ayaa maanta golaha ammaanka ku jira waan idiin sheegayaa somalilan wuu dhaqsaa loo aqoonsan doonaa indhahoodoo shana ayaa kuwa somalilan dumanaya ee isla way daacday indhahoodoo shanaba somalilan la aqoonsanay innagaa u taagan innagaa ka shaqaynayna in la aqoonsado cid walba waynu u gardhiganaynaa shanta dal ee leh diidmada qayxan ee security councilka qaarna danaynu ka iibinaynaa oo somalilan iyo baddeeda casbay danaynayaan dalkan ingiriiskaad joogtaanna waa dalkii xuduuddaa sameeyey waa dalkii xorriyaddayna siiyey xidhiidh dheer baa boqortooyada ingiriiska inaga dhexaysa oo aanay ka dhaxayn soomaaliya ayay naga dhexayn بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم